example kan ayaan haysanaa oo nala ka rabo inaan raadino dy all over dt. marka waxaan leeyahay haddii if x squared plus y squared hadday la mid tahay 25 dx all over dt na ay la mid tahay -2. marka what is ayaa lagu dhahay midkan dy all over dt muxuu ku siinayaa x markay tahay 3 y na ay tahay -4. marka waxaan isticmaalaynaa functionkan soo qoranaynaa x squared plus y squared is equals to 25. marka derivative-ka because waxaana la ka rabaa dy all over dt, marka derivative-keenu waa with respect to t. marka waxay noqonaysaa d all over dt oo x squared. derivative-ka waxaan raadinaynaa functionka dhankan iyo dhankanba with respect to t. marka derivative-ka x squared with respect to t lagu daray derivative-ka y squared waxay la mid tahay derivative-ka 25 d all over dt oo 25 ah. marka derivative-ka x squared ogow hadda x squared waxa weeyaan waa function uu ka duwan yahay derivative-ka hadda d all over dt way ka duwan tahay d all over dx. derivative-ka hadda x squared with respect to x way ka duwan tahay derivative-ka x squared with respect to t. marka with respect to t waxaa loola dhaqmayaa inay tahay a different function. marka derivative-keeda wuxuu noqonayaa outside inside rule ayaan isticmaalaynaa oo marka waxay noqonaysaa 2x times dx all over dt. saas ayuu noqonayaa derivative-ka x squared with respect to t markay tahay with respect to t. oo marka koobaad derivative-ka kore outside derivative-ka ayaan outside function-ka ama outside function-ka ayaan derivative-kiisa raadinaynaa oo 2da ayaan x ka soo dejinaynaa 2 times x ayaan leenahay power 2gana hal ayaan ka jaraynaa kadibna derivative-ka function-ka gudaha ayaan raadinaynaa. function-ka gudahana waa x marka derivative-ka function-ka gudahana wuxuu na siinayaa dx all over dt. marka inside outside rule ayaa loo yaqaanaa. videoyaashayda hore ayaad daawan kartaa si fiican ugu fahanteed. marka derivative-ka y squared-na waa la mid, waxay iska noqonaysaa 2y lagu dhuftay dy all over dt iyadana waa la mid. marka labadaasba waxayna siinayaan derivative-ka 25 waa iska 0, derivative-ka constant waa iska 0. okay hadda waxa weeyaan waxaana la ka rabaa in raadino dy all over dt. marka dy all over dt dhanka kale ayaan geenaynaa. marka waxaa noogu soo haray meesha 2x lagu dhuftay dx all over dt waxay la mid tahay midan haddaan dhanka kala geeyo waxay noqonaysaa -2y dy all over dt. saasay noqonaysaa. marka waxaan la dhahay dx all over dt waa -2 dx all over dt waa -2 x-na waxa weeyaan 3. marka hadda waan substitute garaynaynaa 2 times 3 booski x waxaan gelinaynaa 3 dx all over dt-na waxa weeyaan waa -2. marka waxay la mid tahay -2 times y, y-na waa -4 y-na waa -4 marka waxay noqonaysaa -2 times -4 oo lagu dhuftay dy all over dt. marka 2 times 3 waxa weeyaan waa 6, 6 times -2 waa iska -12 -12.
negative 2 times negative 4 na waa 8 waa iska 8 dy dt. marka saad aragtiin waxaan samayn karnaa by 8 dhankan divide by 8 inaan dhahno divide by 8. marka intan way isla baxayaan meeshan waxay igu soo haraya negative haddii aan simplify garay waxay ii soo baxaya minus 3 all over 2 minus 3 all over 2. marka hadda sidaas ayaan ku keenay dy all over dt waa minus 3 all over 2.